Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan asxaabta youtube-ka. Casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay sida moobilkaaga aad ugu dhex maamuli lahayd kombiyuutarkaaga markaad doonaysid inaad ku maamushid moobilkaaga kombiyuutarkaaga sidii remote camal. waxaanu u baahannahay laba barnaamij kombiyuutarkaanu kusoo xawileyno moobilkaanu kusoo xawileyno oo la yiraahdo TeamViewer. labadaba si loo soo dhanagaraysanaya waan idin tusayaa. waa wax yar oo fudud oo easy ah. kan Play Store-kaynu ka helaynaa TeamViewer la yiraahdo, ka kalena halkaas ka helaysaan haddaan idin tuso desktop-ka waa halka yaala. desktop-ka haddaan idin tuso waa halka yaala TeamViewer-ka ay ku qoran tahay, moobilkana wuu ku jiraa waa ka marka labadaba waynu kusoo xawilanaynaa. kan iyagu saas u soo baxaya waan idin tusayaa sida la isugu xiriirinayo iyo sida ugu dhex maamuli lahayd sidii remote camal. kaasad Play Store ka soo xawilanaysaa, waadna garanaysaa sida soo xawilan lahayd. lagu tusi maayo haddaan ku yar eegno. TeamViewer ayaad ku qoraysaa, waxaad xawilanaysaa kay ku qoran tahay TeamViewer for remote control. kaasad soo xawilanaysaa, way badan yihiin laakiin kaasina soo dhanagaraysanayna. ka markaynu soo dhanagaraysanno waa ka sawiradiisa ayaad eegi karaysaa sida ugu maamulayo yacni moobilka. waad aragtaan sawiradiisa haddaynu eegno waa kuwaas. kaasaad soo dhanagaraysanaysaa, muhiimadu waa inaad soo dhanagaraysatay kaas. marka waxaynu sameynaynaa waynu ka noqonaynaa. markaynu ka noqono barnaamijkaynu soo furanaynaa. barnaamijka ayaynu soo furanaynaa. markaynu ka noqono barnaamijka ayaynu soo furanaynaa, xaggayna kala tegaynaa. markaynu soo furano wuxuu ku leeyahay waxaad gelisaa ID-gana waxaa ku siinaya barnaamijka kale ee kombiyuutarkaaga kugu jira. hadda asxaabta inu isfahano, kombiyuutarkaaga markaad doonaysa ID markuu moobilka saa kugu soo saaro, moobilka waa iskaga teginaa. waxaynu soo furanaynaa barnaamijkii kale ee kombiyuutarka inoogu jira. hadda moobilka waynugu soo xawilina, ka kombiyuutarka inoogu jira ayaanu imanaynaa. aynu soo dhanagaraysanay waa ka ID halkaasay ku qoran tahay, waad aragtaan, iyo password ayuu ku siinayaa. isagana sida loo soo dhanagaraynayo waa in tusayaa. ID-ga iyo passwordkaasaynu gelinaynaa, waad halkaa gelinaysaa. isagana browserka browserka isticmaalaysa adigu intaad tagtid ayaa ku dhufanaysaa. halkaasay ku qoraysaa TeamViewer download, waana free, commercialna ku dhufan maysid. waxaa ku dhufanaysaa aniga inaad isticmaalaysa camal, adigu inaad isticmaalaysa baa ku dhufanaysaa. wuxuu soo saaray mid ganacsi ah tusinaysaa rabtaa mise mid adigu leedahay individual ah. kaasaad dooranaysaa. marka uu kuu soo saaro saas uu kusoo saaraya download TeamViewer ayaa oranaysaa. aniga hadda way ku jiraa, marka inaad soo xawisho. website-kooduna waa noocaas. marka website-koodaad ka soo xawilanaysaa, waana free. markaynu ka noqono hadeerto, isaga noqono aynu barnaamijkiisa inoogu soo saaro. ID-ga aynu gelinaynaa halkaa. ID-ga ayaad halkaa gelinaysaa, lambarada intaa qortid. anigu hore waan u geliyey, waan tijaabiyey barnaamijka kan caadi. markaa gelisay waad sugaysaa. marka aad sugtid wuu kuu soo saarayaa. passwordkana waa gelinaysaa oo ku siiyey. passwordka uu ku siiyey waa gelinaysaa isana. passwordka markaynu gelino isagana aynu qorno. passwordkaasaynu gelinaynaa isagana. passwordka markaynu gelino passwordkaynu gelinaynaa, waynu sugaynaa asxaabta. wuu inoogu connect garaynayaa. moobilkaaga ayaa sidiisa uga maamuli karaysaa. shaashada kombiyuutarka desktop-kaaga way ismadoobeynaysaa. saad doonaysa u isticmaal, mouse baad rabtaa, mid one touch aad rabtaa, hal mar aad taabashid, mise double click ayaa rabtaa, wax noocaas ugu saarayaa. don't show halkay ku qoran tahay ayaa tigta saaraysaa. continue ayaa oranaysaa. halkaa don't show waa ka waad aragtaan. desktop-ku moobilkaaga ayuu ku geeya. hadeerta waxaa isqabsanaya kamaradii waxbaa isku dhacaya, laakiinse adiga muhiimada waxa weeyaan inaad moobilkaaga ka maamushid kombiyuutarkaaga. waadna ka maamuli kartaa meel kastana waa taaban kartaa. si yaroo easy oo fudud ayaad uga maamuli kartaa. waana barnaamij runtii fiican oo ku xiiso gelinaya oo ka maamuli kartid. markaad hadda mouse isticmaalayso oo kale hawl badan ayaa laga yaabaa, laakiin markaad
adigoo isticmaalaya touch screen mobilekaaga adoo taabanaya ka dhigan tahay. Hadaanu computerkaagu touch screen lahayn ama screenka quraarada aanu lahayn, screenka shaqeynaya computerada, mobilekaaga ka connect garanaysaa si yar oo fudud ayaad uga isticmaalaysaa. Hadda marka mobilkeenu taabanay, hadda wixii si fiican markii laga ilaaliyo markaad mobilkaaga ku wadid caadi uu kugu shaqeynayaa, caadi baad u isticmaali kartaa. wax yar oo fududeysiya. Desktop markuu madow noqdana waa ka bedelan kartaa, waa caadi, wax micno leh ma laha, wax yar oo easy oo fudud. Marka asxaabta waa kaadi sida loo isticmaalayo ayaan tusayaa. waana barnaamij run ahaantii fiican oo si fiican u isticmaali kartid, waad daawan kartaa dirto aragtaa. mobilkayga hadda ka wadooda caadi uga wadooda, meel kasta oo geli karaysaa. ID-ga iyo passwordkiisa baad gelinaysaa. wax muhiimadu waa intaa inaad ka wadid xarigii USB-na waad u isticmaalaysaa si uu connect garanaysaa. casharkan ku tusay hadda waan ka noqday. marka barnaamijkaas ku isticmaala computeradiina ku xiriiriya si aad isugu connect garaysaan oo ugu isticmaashaan touch screen computerkaaga adoo wax moos isticmaalayn. asxaabta waadna mahadsantihiin daawashada soo daawateen videogan. inaad subscribe tiraadina ilaawina waadna mahadsantihiin. wabilaahi tawfiiq.